iyadoo maanta gobolka Sanaag ay ku dagaalamaan ciidamo ka kala tirsan maamulada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa dagaalkaasi waxa guul ka sheegtay ciidanka militariga maamulka Soomaaliland. qoraalkan ka soo baxay hafayeenka ciidanka Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in ciidankoodu ay guul la taaban kara ka gaareen kuwa Puntland isla markaana ay ku furteen hub iyo waliba sidoo kale gaadiid dagaalka sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay maamulkaasi. dhinaca kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in ciidanka Puntland ay iyagu dagaalka soo qaadeen sidoo kalena ay maalmihii la soo dhaafay daandaas ciidan ay ka wadeen gobolka Sanaag waxaana Soomaaliland ay sheegtay inay iska caabiyeen dagaalkii lagu soo qaaday. ugu dambeyntii qoraalkan waxa lagu soo gabagabeeyay in Soomaaliland aysan doonin dagaal balse haddii laga diin waayo daandaasiga joogtada ah inay qaadi doonto tallaabo ay ku gudunayso waajibkeeda. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hogaamiyaasha waqooyiga bari ee Kenya ee Soomaalida u qabtay 24 maalmood si ay ula yimaadaan xal wax looga qabanayo dhibaatooyinka amni darro iyo falalka argagixiso ee ka jira gobolka. Uhuru Kenyatta ayaa dalabkan hordhigay barasaabyada kala ah Ali Roba Mandera, Maxamed Cabdi Maxamuud Wajir iyo Cali Korone Gaariza oo ay weheliyaan hogaamiyaasha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale iyo xildhibaano uu ka mid yahay Aadan Keenan. madaxweynaha ayaa xubnahan u sheegay in falalka argagixiso ee gobolka ka socda ay geysanayaan dad gobolka ka soo jeeda ayna qasab tahay inay wax ka qabtaan dadka gobolka. sida ay sheegeen dad goobjoog u ahaa kulanka Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay mas'uuliyiinta Soomaalida in ay hay'adaha amniga Kenya ay xireen xuduudaha Soomaaliya isla markaana aysan jirin xubno shabaab ah oo u soo gudbaya Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in xalka wax laga qabanayo saameynta ay weerarada ku yeesheen gobolka uu yaalo hogaanka gobolka. Barsaab Cali Korone ayaa kulanka ku sheegay mid miro dhal ah isla markaana ay madaxweynaha hordhigeen arrimaha gobolka ka taagan sida amniga iyo waxbarashada.